يعني waxaa jirta meel ahaan jirtay labada buurood dhexdooda u dhaxaysay oo tog bacaad la ahaan jirtay hadda se wixii oo dhade waa la aasay oo waa yani smith iyo tiles iyo waxba la dhigay waxba ka garan maysid laakiin calaamad baa loo sameeyay korkaaga markaad socoto waxaad ku arkaysaa muxuu ahaa nal cagaar ah iyo nal kale oo cagaar oo halka ka muuqdo korkaaga ku dhagan nalka cagaaran markaad ku aadan tahay orod baad bilaabaysaa ilaa aad nalka kale cagaaran ka gaadho dhexdooda waad ordi markaad soconayso kadibna saad markaad dhaafto waad iska socon tartiib baad u socon buurta marwo korkeedaad fuulaysaa qibladaad ku soo jeedsanaysaa sidii aad safo korkeeda samaysay baad ku samaynaysaa markaad dhamaysato waad soo gadoomaysaa waxaad soo aadaysaa safaad ku soo noqonaysa markaad meelihii calaamadaha lahaa nalka cagaaran lahayd dhex marayso haddana waad ordi noqodka sidaas baa waxaad ku dhamaysanaysaa 7 socod oo markaad safa ka tagto oo marwo aad tagto waa hal socod markaad marwo ka soo noqoto oo aad safa ku soo noqotona waa socod labaad sidaas baad 7 ku dhamaysanaysaa midka u dambeeyana marwo korkeedu ku dhamaanaya waxaan u leeyahay dadka qaar kood waxa ka khaldanta halkii wareegba sidii wuxuu u qaadanayaa dawaafkii kacbada oo kale markaasuu halkii wareegba safa markuu ka tago oo marwo tago oo soo noqdo oo safa yimaado buu hal xisaabsanaya taa marka 14 bay ka noqoni sooma marka sida saxda halka buur labada buurood dhexdooda halkii socodba waa wareeg sidaas ay 7 ku dhamaan markay saa kuugu dhamaato oo socodka aad dhamaysato waad ka tagaysaa waxa ku laaban marka muxuu ahaayay in aad timaha xiirato ama aad gaabsato inaad timaha xiirato ama aad gaabsato nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaahay u bariyay dadka xiiranaya ilaahay inuu naxariisto markaas waxay saxaabadu yiraahdeen rasuulka ilaahay kuwa gaabsanayana nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kuwa xiiranaya Allahu naxariisto rasuul ilaahay kuwa gaabsadana kuwa xiira Allahu naxariisto rasuul Allah kuwa gaabsadana Allahu naxariisto mar danbay galeen sooma marka sida fadliga badan waa xiirashada laakiin hadayna xajkii soo dhow yahay oo iyadoo xajkii maalmo ka laaban yihiin timuhu ayna soo bixi karin hadaa tagto gaabsiga ku fadli badan maxaa yeelay xajkana waxa lagaaga baahan doonaa tima aad xirto sooma marka hadii xajkii soo dhow yahay oo timahu muddada ayna ku soo bixi karin umrada waxa ku fadli badan inaad gaabsato si hadhow xajka aad u xirto timo kugu soo hadhaan ama hadii waqti uu kala fog yahay xirashada fadli badan hadaad xirato markaasi oo aad timaha xirto khalaas waxa ku dhamaaday umradaadii waxa ku dhamaaday umradaadii oo ka kooban inaad soo xirato soo xarmatay inaad dawaafkii samaysay labadii ragcadood oo tukatay labada buurood dhexdooda 7 goor socotay xiirasho ama gaabsi oo samaysay inta markaad samayso umradaadii waa ku idishay waad xalaaloobi marka maxaan ka wadnaa waad xalaaloobi bimaana waxyaalo fara badan oo lagu diiday markaad xarmatay oon ka hadli doono baa ku xalaaloobay yaani caadi baad noqonaysaa marka oo waxyaabihii oo dhan baa xalaal ku noqonaya oo maxaa kamid ah waxyaalaha yaani ruuxa markuu xarmado aan loo ogolayno xaraam ka noqonaya way far badan yihiin markaad saa u xarmataba waxa xaraam ka noqonaya inaad timahaaga xirto markaad saa u xirato umradaba waxa xaraam ka noqonaya timaha inaad xirto oo timaha ma xiri kartid meeshay doonaan jirka kaga yaalaan meeshay doonaan jirka kaga yaalaan ma xiri karis waxa kale toon lagu ogolayn in aad cidiyahaaga jarto ama gaabiso waxa kale lagu ogolayn inaad madaxaaga dado hadaad nin tahay rag hadaad oo shay madaxa ku dhagan ama madaxa la xiriira inaad ku daboosho umaamad ama koofiyad ama go'aad saartay ayaan la ogolayn laakiin hadduu shay ka koreeyay yahay sida midaan dallad oo kale ambareelo oo kale ama baabuur aad ku jirto kale ama guri oo kale saqfigiisa koron kugu dhaganeen taa dhib malaha waxa kale lagu ogolayn dharkan caadiga inaad qaadato
haweenta iyada waxaan loo ogolayn inay indhaha shareerato ama ay muxuu ahaayey golfiski gacmo geliska xidhato waxa kale lagu diidi wax udgoon oo dhan baa lagu diidi waxa lagu diidi ugaarsiga oo jiray waagii hore ugaadha in la dilo waxa lagu diidi in aad guursato ama guuriso ama aad doonto waa lagu diidi mar haddaad xarman tahay mana guurin kartid mana guursan kartid mana dooni kartid ama wakiil noqo ama aduguba asal noqo sida xadiidka Uthman ibn Affan tilmaamay waxa lagu diidi markaad xarmanto sidoo kale xaaskaaga inaad u galmooto inaad taataabato dhunkato hawlihii ka horeeyay galmada iyadana waa lagu diidi waxa soo dhan baa waxa la isku yiraahdaa mahdhuratul ihram markaad xidhato iyo xaraam ka noqonaya markaad umradii dhamaysato marka wixii xaraam ka noqday oo dhan baa dib xalaal kuugu noqonaya Soomaaliyeed ma aad timihi ma xiran ama ma gaabsanin dharkaaga xidho barfuunka iyo cadarka yani isticmaal reerkaaga haday kula socdaan waad isu fasaxantihiin wahaakada wixii lagu diido dhan waa lagu ogolaanay magaaladaada iska joog mar magaaladaada iska joog salaadaha iyo cibaadaadkaaga iska wad inta umrada markaad ku dhamaysato maalinka 8aad oo yawm tarwiya la yiraahdo ayaa markaasi xajku bilaabanaya xajku maalinkaas bilaabanaya yawm tarwiya la yiraahdo meelaha marka acmaasha xajka lagu sameeyo waa 3 meelood si aad ila socotaan aan idin hormariyo waa Makka oo magaalada gudaheeda oo Kacbadii iyo meeshii sacyiga ku taala Mina oo marka Makka laga tago meesha ugu xigta Mina waxa ku xigta Muzdalifa ku xigta Muzdalifa waxa ka dambaysa oo ka koraysa Arafa ka koraysa inta kalaba xaramkay ku jiraan laakiin Arafa iyada xaramka way ka baxsantay shanta meelood waxaan dhila afarta meelood ba acmaasha la sameeynaya xajka hadaad maqasho acmaashu inta soo meelood bay ka dhacaysa tayib maalinka marka la gaaro waxaad sameeynaysaa markaad umrada xidhanaysay sidaad sameeysay baad isu diyaarinaysaa waad qabaysan dharkii baad dib isaga furi labadii go' baad xidhan cadar iyo barfuun wixii udgoon baad ismarin waad isdiyaarin waad isnadiifin kadibna meesha aad degan tahay hotelkaaga gurigaaga meesha aad degan tahay baa xajka ka xidhanaysa maxaad leedahay labbayka hajjan ilatii horan soo marnay ma maxay ahayd labbayka umratan tan waa xaj kaliya waxaad leedahay labbayka hajjan kadibna barqinkiibu nabigu sallallahu alayhi wasallam xidhay waxa la aadaya Mina oo meeshii inoogu sokeysay 3 meelood meeshii ugu sokeysay Mina la tagaya Mina marka la tago barqinkii tag duurkii tag meeshaas la joogaya galabtaas habeenkaas waxa la tukanaya duurka lagu tukan oo muxuu ahaayay 2 ragcadooda waqtigiisii baa la tukan casarka la tukan waqtigiisii isagoo 2 ragcadooda maghribkii baa caadi loo tukan 3 ragcadood cishihii baa la tukan asagoo 2 ragcadooda salaadii subax baa la tukan waa maalinkee maalinkii sagaalaad waay maalinka sagaalaad subaxdiisii waa maalinkii Carafa marka maalinkii Carafa waa maalinkaas sagaalaad subaxdiisa waxa laga dhaqaaqayaa Mina Muzdalifa dhexda ku jirtay maalinka shaqo male Soomaalina Muzdalifa ku xigta Muzdalifa maalinka waa la iska dhaafaya waa la gudbaya waxa la tagaya Carafa la tagay Nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu san Carafa gaadhin 2 meelood buu dagay oo ku sii dagay laakiin hadda way adagtahay Carafa la tagay Carafa markii duurka la gaaro xilliga qorraxdu ay zuusha la gaaro ayaa imaamku khudbaynaya dadka u khudbaynaya kadibna waa la aadaamaya hal aadaan waa la aqimaya duurkii oo 2 ragcadood la tukanaya haddana waa la aqimaya casarkii oo 2 ragcadood la tukanaya jam'an wa qasran waana la gaabinaya waqtiga duhurkana la isugu geynaya la wada tukanaya saasa loo tukanaya hadaad imaamka la tukatana khayr hadaad imaamkaada la tukanin oo meel kale aad degantahay imaamka ka fogna meesha aad joogtaan baad ku sameynaysaa hal aadaan oo labada ka salaadood ka dhaxeeya iyo mid walba aqimaad khaas ay leedahay sidaas la sameynay inta markii la sameeyo kadib wax salaado dambe
oo u dhaxaysa laba ragcadood dhexdooda labada salaadood ee duurka iyo casarka la isla tukanayo wax salaadi uma dhaxayso wax salaadoo sunnaana kama dambayso wixii inta ka dambeeya waxa bilaabanaya marka waxa loo yaqaan wuquufu arafa oo macnaheedu yahay istaaga arafo banka arafo istaagidiis istaaga maxaa laga wadaa dadka qaar kood waxa laga yaabaa inay u qaataan istaaga arafo inaad maanta dhan taagnaato macnuu ma istaaga arafo waxa laga wadaa ama dhinac u seexo ama fadhiiso ama taagnow ee digriga ilaahay ku mashquul baa laga wadaa ilaahay xuskiis quraan akhris ducayso adkaar ilaahay un xuskiisa wax ilaahay ku dhaweynayo un ku mashquul baa laga wadaa ama qaabkaad isu dhigayso magaadiid baad fuuli nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinkaasi halbuuba kor fadhiyay hashiisu kor fadhiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam saas daraadeed wuquufka waxa laga wadaa bimaana cibaadada lagu mashquula laga wadaa ruuxu caraf tagaya marka carafa bankeeda ama meesheeda banaan weeye laakiin hadda waxa laga dhisay teendhooyin geeda laga abuuray meesha iyada meeshii aad ka degtaba waa okay nabigu sallallahu alayhi wasallam buurta aad arki doontaan oo carafo dhexdeeda ku taala jabalur rahma la yiraahdo oo dadku inta badan aadaan oo korkeeda fulfuulaan oo moodo sida koronkoro oo kale ay dul saaran yihiin buurta nabigu ma fuulin in la fuulana waxba loogama baahna ajir gooniyood ka heli fuulitaankeedana ma jiro nabigu sallallahu alayhi wasallam meeshuu istaagay waxay ahayd buurta hoosteeda dhagaxyaal waaweyn oo yaala buurta halkaasoo hashiisu taagnayd hasha korkeedu saarnaa laakiin wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam waqaftuha huna wa arafatu kullaha mawqif halkan ana istaagay laakiin banka carafo dhan waa meel la istaagi karo meel alla meeshii kaaga soo kaagta adigu istaag laakiin waa inaad hubiso in aad xuduudii carafa gashay waxaan saa u leeyahay boodhar waaweyn baa meesha ku yaala markaad garayso carafo halkan ay carafa ka bilaabataa markaad ka baxayso waad ka baxaysaa musdalifa markaad galayso boodhar waaweyn baa ku yaalo ku tilmaamaya saas daraadeed waa inaad xuduudda carafa gasho hadaad ka soo marto xajkaaga waxba kama jiri doono waxa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-hajj arafa ibn sallallahu alayhi wasallam hajj wa un arafo hajj wa un arafa ibn sallallahu alayhi wasallam marka arafo banaankeeda la istaagaya maalinka isaga waa maalinka aad u fadli badan Allah tabaaraka wa ta'ala maalinka samada soo iimaanaya sida nabiga ka sallallahu alayhi wasallam markaasuu adoomadiisa ugu faanaya malaa'ikta xulay adoomadaydi fiiriya maxaa keenay rabbi uu naxariistaaday rabaan cadaab bay ka magan galayaan u sheegay inaan u dambi dhaafay rabbi tabaaraka marxaati ka ahaada waan u dambi dhaafay maalinka maalin uu shaydaan ka foolxun yahay oo ka murug badan yahay ma jiro maxaa yeelay ilaahay khalqiga uu naarta ka xoreynayo baa aad u badan marka inaad banaanka isaga ka faa'iideysato oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha u fiican ee looga faa'iideystana waxa kamid ah tawxiidka afdalu ma qultu ana wan nabiyuna ashiyata arafata la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir waxa ugu fadli badan waxaan iraahdaa aniga nabiyadu galabta arafa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hada doonto waa talbiyeysan kartaa labbayk allahumma labbayk waad wadi kartaa dad doonto quraan akhriso dad doonto ducayso wakuka tayib maalinka isaga in la soomo sunna ma ah dadka aan joogin arafa ee muslimiinta kala ah ba maalinka sunna u tahay inay soomaan amma dadka xajka jooga maalinka inay afuraan ba sunna waxa nabigu waa afuraa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas aad marka wadaysa hawshaas aad ku mashquulaysa si ilaahay tabaaraka wa taala naarta kaaga xoreeyo markii qorraxdu dhacdo inta qorraxdu ka dhacayso waa la joogi qorraxdu markay dhacdo ayaa marka laga soo dhaqaaqaya meesha la yiraahdo carafa laga soo dhaqaaqaya qorraxdu markay dhacdo tayib xagee la soo aadaya meeshii ku xigtay oo ahayd musdalifa qorraxda ku dhacday maalinka carafo salaadeeda maqribee soo gashay inaad carafa ku tukato sunnada ma ah salaada dib u rar musdalifaad ku tukan doontaa cishahaad isla tukan doontaa laakiin meesha ha ku tukanin jidka intaad sii socotana ha tukanin waa sidii nabigu sameeyey sallallahu alayhi wasallam carafu ka dhaqaaqay markii qorraxdu dhacday jidkuu maray markuu jaanis helo hasha waa socodsiinayo waa la xaadsanayay markuu xoogaa cidhiidhi galana waa celinayay dadkana wuxuu amrayay tartiibsada sakiina xasila
hadegdegina tartiibsada buu nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas marka loo soconaya tayib kadib marka tagto meesha la yiraahdo Muzdalifa marka tagto xilligaas ayaa marka salaada la aadaamaya hal aadaan wala aqimaya salaadii maghribka la tukanaya oo 3 ragcadood Muzdalifa lagu tukan wala aqimaya salaadii cishaha la tukanaya oo meeqa ragcadood 2 ragcadood wixii inta ka dambeeya waa la iska seexanaya salaada cisha markuu tukaday kadib nabigu waa seexday hatta habeenka salaatu leyl uma kicin maxay yeelay waad garan kartaayo maalinka horena waa maalintii Carafo waa la taagnaa waa la daalan maalinta soo socotana shaqo badan baa taala saas daraadeed habeenka in la nasto xikmad baa ku jirta waa habeenka Muzdalifa la joogo waa la iska seexanaya marka sidoo nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa waagu bariyo markay waagu bariyo xilliga hore ee waagu bariyo buu salaada subax nabiga sallallahu alayhi wasallam tukaday oo muxuu ahaay labadii ragcadood ee fajrka ka horeeyay buu tukaday sunnadaha kadibna salaadii buu tukaday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tayib waxa meeshaasi baraarujin mudan Muzdalifa inaadan habeennimo ka tagin oo waagu kuugu bariyo salaada subax aad ku tukato bahadiga nabiga sallallahu alayhi wasallam Allahumma dadka loo ogol yahay habeennimo inay Muzdalifa ka tagaan waa dadka tabarta daran duqeyda aan socon karin dumarka dadka jiran dadka tabarta daran caruurta kuwaasi aan xamili kareynin ayaa habeennimo la sii kaxayn kara gelinka dambe ama dadka xoog gale maya waa inay waagu meesha kuugu bariyo wabitaali aad muxuu ahaayay aad salaad subax ku tukato markii waaga la tukado waagu bariyo kadib salaada la tukado marka waxa weeyaan waa mash'arul haram meesha iyada fa idha afadtum min arafatin fadhkuru allaha 'inda al-mash'ari al-haram markaad arafa ka soo gadoontaan allah ku xusa mash'arul haram ka agtiisa mash'arul haram kuwa Muzdalifa markaas ilaahay xuskiisa la bilaabaya salaada subax kadib oo duco tawxiid dhikri quraan akhris halkaas aad marka wadaysa طيب ila goorma ila inta ay qorraxdu ka soo dhawaanayso qorraxdu intayna soo bixin laakiin ay soo dhowdahay ayaad marka dhaqaaqaysaa xageedaadaysa mina sooma mina ku xigta waa mina oo maalintii 8 marnay maalinkaana maxaa la joogaa waa maalinkee waa maalintii 10aad ilaa 9aad carafan joognay sooma maalinkii 10aad subaxdeedii baan Muzdalifa ka dhaqaaqnay minaan aadnay marka subaxda iyada shaqo badan baa taala marka maalinkaas 10aad waa maalinka yawm al-hajj al-akbar maalinka xajka ee ugu weyn waa maalinka 5 amal baa la qabanaya 5 shaqo ayaa la qabanaya shaqada koobaad waxa weeyaan in buurta jamrada meesha la yiraahdo in la tuurto shaqada labaadna waxa weeyaan in xoolihii la qalo shaqada saddexaadna waa in la xiirto ama la gaabsado shaqada afraadna waa in kacbada la dawaafo dawaaful ifaada ama dawaaful hajj shaqada shanaadna waa labadii buurood ee Safiya Marwa dhexdooda la socdo shanta shaqa maalinka taal qaabkee loo sameeyay mid iyadana aan tafsiil u galin tuurida buurta la tuuranayo markaad Muzdalifa ka tagto waxaad sii qaadanaysaa 7 dhagax 7 dhagax baad sii qaadanaysaa 7 dhagax ama mina ka qaado ama Muzdalifa ka qaado dhagaxyaal yar dhagax weyn lama rabo mid aad u yarna lama rabo qiyaasta adiga galeyd oo kale xabadaha galeyda ama digirta yara kuuskuusan ilaahno muxuu ahaa leeyahay ya maragwa digirta yara roon ama galeyd oo kale qiyaasteeda waa inuu dhagaxu leeyahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qadarkaas oo kale dhagaxaasad qaadan inaad dhaqdo waxba looma baahna dadka caamadii way dhaqaan way nadiifiyaan waxba loogama baahna 7 dhagax baad qaadan kadibna waad socon meesha dhagaxyaanta lagu tuuro ayaduna waa 3 meelood oo isku xigta markaad mina ka imaanayso Muzdalifa ka timaadood xagga mina ka soo gasho 3 meelood waxa kugu soo xigta mid la yiraahdo al-jamratu sughra midda u yar waxa ku xigta mid la yiraahdo al-jamra al-wusta oo ugu dhaxaysa waxa ugu dambayso dhanka Makka ugu xigta mid la yiraahdo al-jamra al-kubra ama jamratu al-aqaba maalinkaas mid la tuuranayana waa taas ugu dambaysay dhanka Makka ugu xigta
labada kale waad iska soo dhaafaysaa toddobadaadii dhagax baad wadataa dhankeed ka maraysaa sida sunnada ah ee nabigu sallallahu alayhi wasallam inaad dhanka bidixda ka gasho ood xagga bidixda iska taagto makana ay markaa kaa xigsato dhanka bidix minana ay kaa xigsato dhanka midigta dhanka inaad ka gashaa fiican laakiin dhinacyahoo kale haddaad ka gashana iyadana waa gudaysaa maxaa dadku dhanka kama wada geli karaan waa badan yihiin طيب marka waad istaagaysaa korkeedaad istaagaysaa dhagaxyaantii toddobada ahayd wadatay baad mid u tuuraysaa mid ayaad u tuuraysaa adiga oo takbiirsanay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar toddobada saas u tuuraysaa waxaan kala gadisnayn oo isku mid ah ama dabaqa ugu hooseeya ka tuuro ama ka ku xiga ka tuuro ama ka afraad ka tuuro ama ka shanaad ka tuuro dabaqyaa hadda laga dhisay si dadka loogu fududeeyo socodkaad socoteed musdalifa ka timaadaba itijaah waxaad galaysaa aadan ka leexan karin si dadka loo qaybiyo marka kaa uun aad ku hagaagtay meeshuu kugu hagaajiyo dabaqaa uun ka tuuro dhagaxu suu socdo hoos buu imaan doonaa laakiin adiga waxaad uun isku daydaa inaad dhagaxaaga ku hubsato godka meesha loogu talagalay iyo xawdka halkaa uun inuu ku dhaco ku hubso bas markaad tuurato Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar oo ka dhamaado toddobadooda aad dhamayso ka ugu dambeeya markaad tuurato halkaasaad ku joojinaysaa labbayk Allahumma labbayk oo soo bilowday goorma markaad xajka soo xidhatay sooma maalinkii sideedaad xajka markaad xidhatay talbiyadaad soo bilowday waxay dhamaanaysaa dhagaxa ugu dambeeya markaad tuurato toddobada dhagax sida nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan tayib taawamida ayadana yani intaasi aan kaga gudubna waa tuurashada waxa tuuran kartaa marka gelinka hore ila duhurkii ila gelinka dambe ila habeenkii waa la tuuran karaa hadaad jaanis haydo waxba isdhibin waqtigu waa waasic khaasatan dadku way isdilaan oo xilliga hore nin walba isleeyahay ka faa'iideyso marka waa lagu dhintaa meelaha lagu dhintay kamid ahaan jirta inkastoo hadda la hagaajiyay marka waxba isdhibin ila habeenkii waa tuuran kartaa macna طيب انت markaad samayso waxa ku laaban oo ku xiga gowrici marba hadaad umra gudutay xajna ka dambeeysis ood mutamattic tahay waxa kugu waajibaya gowrac neef ari inaad gowrac hadaadan kari karina inaad toban bari soonto saddex bari oo intaad xaramka joogto aad soomi iyo toddoba bari oo markaad soo noqoto aad soomi doonto gurigaaga ku soomayso فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة طيب هدي يجي لك ورعي أو مكان واجب كاه أما ضد حاجرة حولبك كيني وهدي كيني وحولب فرب بدن حرم كيني ولا جورعي أمر حل جاسنا لا جورعي ومعناها سيدا في عن إن تكون جورعة ماشي اللي هو جورعة من حركة meel alla meeshaad ku gowracdana waa isku mid meel alla meeshii aad u gowracdo duruufta ku saamaxdo waa isku mid gowracaas hadda waxa la sameeyaa xujaajtana u fudud markaad tagtaba in aad wakiilato cid xoolaha iibisa oo ka qasha dawladdu waxay ugu tala gashay shirkaday siisay barnaamijka ugu tala gashay oo meelo u furan yihiin wadooyinka dhacyahooda oo lacagta loo dhiiba $100 miya ma ka badan tahay ma ka yartay qaaliban saasay noqotaa neefka ariga kuwaasaad isaga wareejinaysaa iyagana muhiimada qabanaya Soomaalidana waxaa jira sharikado yar yar iyo ashxaas laga yaabo kuwa idin wada ajinsiyada inay xataa ka mid yihiin ayaga hadii ay mas'uuliyadda u istaagayaan waa isaga wareejin kartaa si maalinka shaqadaaba aadan ugu baahanin xayeele cid baad ku wareejisay cidaas mas'uulka ayadana waa la sameyn karaa macna udxiyadaasi markaad qasho sida sunnada waxa weeyaan in la qalo xoolaha geela isagoo taagan ariga iyo lo'dana ayaga oo jiifa in la qala sunna ah waa la wadaagi karaa oo dadku iyagoo dhowr ah way ka wada qayb qaadan karaan 7 ruux neef geela waa isla qali karaan 7 ruux neef lo' waa isla qali karaan ama ariga hal neef ayaa laga rabaa macna طيب waxa la qali karaayo xoolaha qalitaankoodu socon kartaa maalinta ciida ah ee maalintaasi tobnaad iyo 3 bari oo ka dambaysa ayaamu tashriiq kuwi tobnaadka waad qali kartaa 12 tobnaadka 13 tobnaadka waad qali kartaa intaasi waa ayaam
ذبح بو النبي صلى الله عليه وسلم هديغاغا marka sidaas aad sameynaysaa ku qalaysaa xoolaha hadii hilibka adigu aad qasho qaarna waad cuni qaar waad sahayadan kartaa sidoo nabigu ba sameeyay sallallahu alayhi wasallam qaarna waad sadaqaysan kartaa qaarna waad sadaqaysan sidaas aad sameynaysaa macna fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar ayu Allah yiri tabaaraka wa ta'ala taasna iyadana way banaanta waxa soo haray markaad xoolihii hawshoodii dhinac iska mariso waxa ku soo haray inaad timaha xiirato sooma ilaan kii saddexaad way maalinka la qabanay timahaad xiiran inaad xiirato fadli badan san soo sheeg haddaad gaabsatana way ku banaanta horaan soo sharaxnay tayib taasi ragga iska leh xiirashada ragga iska leh ama dumarku ayagu xiirasho ma leh gaabsi bay leeyihiin timahooda saasay u qabanayaan kadibna fiida hore ayay wax yar manqas kaga gooynayaan ayna nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam laysa ala an-nisa'i halqun inma ala an-nisa'i taqsir dumarka korkooda ma aha xiirasho maxay la timahoodu macnay ku fadhiyaan timahoodu macno ka weyn kuweenu macnay ku fadhiyaan bay ku fadhiyaan in la xiiro ma la rabo marka laakiin way gaabinayaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam tayib xiiriduna waa sida waxa khalad ah oo dadka qaar kood sameeyaan laga yaabo Sheekh Maxamuud inuu idinku baraarujiyay dadka qaar kood waxay sameeyaan meeshii gaabsada la yiraahdo ama xiira wax yar intay timaha ka qabtaan sida dumarka oo kale oo halkan laba xabba ka jaraya kadibna wuxuu leeyahay waan xiirta ama waan gaabsaday waa khalad wala madhabka Shaafiiciga culimadoodu qaar kood ha qabaan laakiin sax ma ala sawaab ama timaha wada gaabi ama wada xiir laakiin wax yar baan qabanayaa sida dumarku oo kale shaqadaasi waa shaqo dumar waa shaqadii rag ma taasina waa qodob baan la baraaruji maxaan soo sheegnay dhagixii la tuuranayay iyo xoolihii la qalayay iyo kaas dambeeya oo xiirashadii qodobka afraadi waxa weeyaan inaad marka kacbada tagto dawaafto dawaafkana waa tiir kamida tiirarka xajka tiir kamida tiirarka xajka hadaad ka tagto xajkaagu ma jirayo seed u dawaafaysaa waxaad u dawaafaysaa horta waxaan soo dhaafay maalinka tobnaad markaad tuurato jamrada acmaasha inteedii kalena ku laaban yihiin baad xalaaloobaysaa maxaa ka wada waa xalaaloobaysaa bimaana wixii xaraam ka noqday oo dhan markaad xarmatay xaraam ka noqday oo dhan baad dib kuugu xalaaloobaya markii laga reebo xaaskaaga iyo dumarku iyagu wali xaraam bay ka noqonayaan laakiin dharkaagii baad dib u xidhan cadarkii baad ismarin hadaad gabar guursan rabto waad guursan waad codsan waad mehersan kartaa wixii aan soo sheegnay timaha waa dadi waxa kada lagu fasaxay laakiin dumarka wali waa lagu diiday waxaad imaanaysaa kacbada waa dawaafaysa dawaafku qaabkee weeye dawaafku waa kii hore sheegnay uun soomeyna marka umradii meena soo sharxin umrada waxaan soo sharxnay qaabka loo dawaafayo laba qodob baan ku jirin meesha oo dawaafkii hore khaas ku ah maxay garabkii la banaynayay dawaafkan dambe ma laha rucleyntii la sameynayay iyo orodkiina ma laha saddexda hore orodkii la ordayna ma laha dawaafkani labadaasiba waxaan soo sheegnay waxay khaas ku yihiin dawaafka ugu horeeya markaad kacbada tagto kaasay khaas ku yihiin inta kale ma ay laha waa dawaafaysa dawaafku markaad dhamaysato labadii ragcadood baad tukanaysaa sooma waan soo sheegnay yadana labada ragcadood markaad tukato waad tagaysaa labadii buuro safiya marwo dhexdooda tagaysaa waad sacyinaysaa todobadii socod baad sameynaysaa iyadana soo sharaxnay inta markaad samayso camalkaagii xajka maalinkaas hawshii waa ku dhamaatay shanta camaleen sheegnay waa shantee jamradoo la tuurto xoolahoo la qalo timahoo la xiirto ama la gaabsado kacbadoo la tago la dawaafo sacyigii safiya marwo u dhaxeeyay shantaasi halka maalin wada dhacaya sida hadda aan isugu xijinay buu nabigu isugu xijiyay oo kala tartiibiyay sallallahu alayhi wasallam laakiin hadaad kala hormariso dib male socodkaad socotaba hadaad dawaafka ka bilowdo oo buurta tuurashadii jamradaba soo dhaafto ama xiirashada aad ku bilowdo ama xoolo qalkaba aad ka bilowdo oo isdaba marmariso dib male la xaraj nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa lu bidaaw wuxuu rasuulku tanaan hormariyay tanaan dambeysay la xaraj wixii ku laaban uu samee ifcal wala xaraj
saas daraadeed haddii la kala hormariyo dhib male intaas markaad samayso kadib oo saddexdaa arrimood kuu dhammaadaan maxaa laaban marka hal qodob baa inoo laabnaa waxyaalihii ruux markuu xarmado xaaraanta ka noqday dhammaantood waxay u xalaaloobayaan baan nidhi markuu jamrada tuurto hal qodob mooye oo ahaa dumarka soo ma tayib goormuu xalaaloobayaa isagii markaad dawaafka samayso kadib markaad dawaafka samayso waxaad xalaaloobaysaa xalaaloobid buuxda markaad jamrada tuuratana waxaad xalaaloobaysaa xalaaloobid haaf ah oo qaybi weli laaban tahay qodobkaasi kaas wey acmaasha markaad saa u dhammaysato intaana taa ka bixin waxaa kaloo dhici karaysa haddii maalinka aad ka wada gaadhsiin kari weydo maalinkaas hal camal ama laba camal inay maalinkaa galaan ugu yaraan waa laga maarmaan kama dibdhici karaan tuurashada jamrada maalinkaa tobnaad kama dibdhici karto xiirashada ama gaabsiguna maalinkaa kama dibdhici karo laakiin xoolaha qalidoodu way dibdhici kartaa soo maa 3 beriyood dambaaba la sii qali karaa soo maynaa sheegin dawaafka hadduu kugu adkaado sidoo kale wuxuu u dibdhici karaa maalmaha dambe iyadana waa la dawaafi karaa dayib haddii dawaafku dib dhacayna maxaa la dib dhacay sacyigiina waa la dib dhacay soo saas maa laanna waxaa la rabaa in dawaafku uu ka hormaro sacyigiiyo safiya marwo dhexdooda marka kuwaasi way dib dhici karaan laakiin maalinkaa tobnaad waa inaad ku taagsato ugu yaraan inaad jamradana tuurato timahana xiirato ama gaabsato kuwa kale laakiin way dib dhici karayaan sida macnaha in badan culimadu qabaan tayib inta markaad samayso waxa ku laaban maalinkii tobnaad shaqadiisa waa dhamaatay xajkaagi waxa ku laaban maalinka 11aad iyo maalinka 12aad oo laazim ah iyo maalinka 13aad oo khiyaar haysato maalmaha maxaa la qabanaya maalmaha mina lagu laabanaya habeenadeeda mina la baryaya maalinta gelinkooda la iska joogaya marka qoraxdu ay xilliga duhurka la gaaro qoraxdu zuusho oo kala barka ay ka dhaqaaqdo oo xilliga duhurka la joogo laga bilaabo ayaa marka waxa la tuuranayaa saddexdii meelood ee isku xigtay ee jamro soomeyna dhan waa 3 meelood oo midda yar midda dhexe iyo midda weyn baa la dhahaa maalinka 11aad duhurka wixii ka dambeeya kama hormarin karto duhurka ka hor lama tuurto habeenka waad iska joogi waad iska bari gelinka hore waad iska joogi duhurka marka la gaaro waad dhaqaaqaysaa waxaad qaadanaysaa ugu yaraan 21 dhagax maxaa laga rabaa middanoo 7 iyo middanoo 7 iyo middaasoo 7 meeqa wey 21 dhagax baa laga rabaa waxoogaa ixtiyaad iyo taxadarna ku sii darso waxay dhici kartaa meesha cidhiiriga markaad wax tuurtuuraysa inay qaar ka daataan sooma marka qaar waxoogaa haday wax ka daataan in case iska sii qaado waxaad ka bilaabaysaa marka ama duur kadib tag ama casar kadib tag ama habeenkii tuuro qoraxdu marka dhacdo kadib ilaa waagu intuu ka bariyo waa la tuuran karaa waxa laga bilaabayaa marka midda u yar ee u xigta dhanka mina markaad masaajidka weyn ee mina ka timaado dhanka Musdalifiya masaajidka weyn ka timaado midda kuugu soo horeysa ayaa waxa la yiraahdaa midda ugu yar taasaad ka bilaabaysaa taa markaad ka bilowdo sidii baa waxaad uga maraysaa dhanka bidixda sida nabiga sallallahu alayhi wasallam sida sunnada waa inaad bidixda ka marto oo isku aadisood qaabisho kacbaduna ay ka qabato iyo makka dhanka bidixda minana ay ka qabato iyo masaajidkeedii dhanka midigta dhankaasaad ka galaysaa sida sunnada ah toddobadii dhagax baad ku tuuraysaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar toddobada markaad ku dhamayso yaad ka soo baxaysaa wax yar baad dhinaca u durkaysaayo ciriirigaad ka dhex baxaysa xaggaad u yar durkaysaa qibladaad u jeedsanaysa meeshaasaad ku ducaysanaysa dad gacmaha taagto ilaahay waxaad rabtaad weydiisanaysa markaad ducadaada dhamaysato kadib waa tagi tii ku xigtay baad iyadana sidii oo kale dhankii intaad ka soo gasho baad toddobadeedii dhagaxyadana siinaysaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku dhamaynaysa markaad dhamayso baad durkaysaa haddana meeshaas gadaal baad u yara bixi dhanka bidixda ah meeshaasaad haddana ku ducaysanaysaa intaad qiblada u jeesato
waad ka soconaysaa markaad ducadaada dhamaysato tii u dambaysay ayaad tegaysaa iyadana sidoo kale aad ku samaynaysaa ogow marka ku baraarug taas u dambaysa waa tii aad tuuratay maalinkii tobnaad waana midda xagga maka ugu xigta ayadaa maalinkaa ugu dambayso la tuuran toddobadeedii dhagax baad ku tuuri markaad tuurta kadibna ayada agteeda lama istaago lagumana ducaysto faanta labada hore markaad tuurato agtooda lagu ducaystaa laakiin taa u dambaysa ee ugu weyn ee maka xaggeeda ugu xigta ayada markaa tuurataba waa laga dhaqaaqaa kuma ducaysanin agteeda nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka intaasaad samayn habeenka 12aad ku soo galay waad iska baryay hadana maalinka 12aad sidii oo kale gelinka dambe marka la gaaro duurka kadib ayaad sidii oo kale toddobadood saddexdoodiiba sidii oo kale ku samaynay midda ugu horeysa aad ka bilaabi ta ugu yar toddobada dhagax baad ku tuuri agteedaad ku ducaysan tii ku xigtay baad imaanay u dhaxaysay toddobadeeda dhagax baad ku tuuri waad ka durki waad ku ducaysan ducada kadib waad tagi tii u dambaysay baad toddobadeeda ku tuuri markaas waad ka socon maalinkaad joogto waa maalinkee marka maalinkii 12aad gelinkiisa dambaad joogta 12aad gelinkiisa dambaad joogta maalinka marka tuurashada dhamaysato laba mid marka haddaad rabto inaad degdegto iyo inaad rabto inaad daahdo haddaad rabto inaad degdegto inta kadib aad dhaqaaqdo intayna qorraxdu ku dhicin bax oo mina ka bax alaabtaadii waxa ka qaado u guur hotelka deganeed qorraxdu iyana mina kuugu dhicin waad heli kartaa faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi labada bari ruuxi intuu tuurto degdega dambi male waman ta'akhkhara fala ithma alayhi ruuxi dib dhaca oo maalinka 13aad ku darsadana isagana dambi male haddaad habeenka barido ood mina barido 13aad ku soo galayo maalinka 13aad tuurashada haddana waa inaad samayso sidii baan u tuuranaysaa saddexdooda haddaan soo sheegnay u tuuran lahay hore ugu tuurateen soo sharaxnay baa u tuuranaysaa maalinka 13aad haddaad dib dhacday oo tuurato hawshaadii waa dhamaatay marka haddaad degdegtayna ood maalinka 12aad ku dhamaysato tagtana hawshaadii waa dhamaatay sooma acmaashaadii xajku waa ku idilta keliyata dadka xaajada leh danta leh ama xanuunsanaya ama shaqada haya مثلا مصالح العامka haya waardiyayaasha xujayda u adeegaya inay habeenada baryaan waa laga cafina sida Abbas ba nabigu uga cafiyay sallallahu alayhi wasallam habeenka meynada min la joogo waa laga cafina tuurashada la tuuranayana waxay sameyn karaan labada bariba hal maalin bay wada tuuran karaan hal maalin bay isugu geyn karaan oo ay yaani wax weeyaan meesha 22 ay tuuran lahaayeen waxay tuuranayaan 42 ay tuuranayaan hal maalin kalena waa laga daynayaa dadkii xoolaha raaci jiray xoolaha la jiray waardiyaasha hadda lamida saalixda caamka dana caamka dadka haya dadka jirana xanuunsanaya dadka muxuu ahaa culculus oo kale saasa loo sameyn karayaa macna tayib intaasi marka acmaashi xajka kuugu idil waxa ku laaban gurigaaga iska tagi magaalada iska joogi shoppingkaaga iska samayso masaajidka iyo salaadiisa ku dadaal waa masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam bal xaramka oo dhan masaajida ku yaala sida xooga badan salaadaad ku tukatay 10 waxaan dhigay 100,000 salaadeed 100,000 ajirkaad ka heli lahayd oo salaad meel kale aad ku tukatay ayaad ka helaysaa masaajidka xaramka weyn wuxuu fadli iyo ajir la dheer yahay masaajida kale xaramka ku yaala jamaacadiisa badan masaajidka mar walba jamaacadiisu badan tahayna ajirkiisu waa sii baday laakiin 100,000 ee ajirka masaajid kasto xaramka ku yaala waa laga helayaa sida xoog badan sharaajixa salaadaha ku dadaal masaajidka xaramka hore aad weyn hada tay karto waad iska joogaysaa markay noqoto inaad amba baxayso ayaad dawaafaysaa dawaafkana waa dawaafka sagootiga dawaafkaasi waa dawaafkii sagootiga nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahaa bixina ilaa aad cagta ugu dambaysa soo marisaan beedka markaad soo dawaafto waad amba baxaysaa marka inaad dib u seexato ama dib u sii joogto sax haddii inta dawaafka sagootiga samayso markaasi waxoogaa hawla ka laalaaban iyo yaani wax way baabuurka idinka dib dhaco wax yar aad sii joogtaan saacado duruuf darteed dib male marka laakiin waxa la diiday inta dawaafto haddaad sii joogto oo barido haddana dawaaful wadaaca haddana waad ku soo celin sagootiga waad ku soo celin dawaafus cidaaca markaad samayso gurigaagii nabad Allah kugu geeyo sidaasi ayaa marka acmaasha xajku ay noqonayaan
kaliya waxaan doonayaa inaan ku daro inta hadda aan sharaxnay qaabkan u sharaxnay waa qaabka ugu fadli badan ee xajka loo guto oo ah umra madax banaan iyo xaj madax banaan oo tamattu aan ku sheegnay طيب dadka qaar kood waxa laga yaabaa culimadaaba isku khilaafsan inuu barababa xaj kaliya inuu guto muxuu sameeynaa marka waxay ku kala gadisan yihiin kaliya dhowr qodob sidaan soo sheegnay baa la sameyn markaad xaj kaliya wadato laakiin xarmashada way ku kala gadisan yihiin markaad xarmanaysay tamattuca maxaa soo tiri tamattuca umra soo xidhad Soomaa labbayka umra hadaad xaj kaliya rabto labbayka xajjan baad dhihi Soomaa labbayka xajjan halka way ku kala gadisan yihiin waa mid labaad ruuxa xaj kaliya wata markuu kacbada yimaado wuu dawaafkiisana waxa la yiraahdaa dawaaful quduum mutamatticana dawaafkiisa waxa la yiraahdaa dawaaful umra marka soo timaado dawaafkiiba dawaafi waa kan soo sharaxnay labadii ragcadoodna waa tukan waa xaj kaliya hadaad wadato labada ragcadood marka tukato laba khiyaar baad leedahay inaad inta ku ekayso oo sacyiga aad sameynayso maalinka tobnaad aad u dib dhigato iyo inaad sacyiga labada burood dhexdooda aad iska sii hormariso dawaafkaaga hore markaad sameysaba aad sacyigana ku darto hadaad sidaas sameyso maalinka tobnaad dawaafkiisa sacyigii ka dambayn lahaa adiga lagaama rabo sababtu maxay tahay laana sacyiga horeed sameysay markaad meesha timidba baa sacyigii xajkaaga Sooma waa qodobka labaad waxa weeye maadaama xaj kaliya aad wadato ma xalaaloobaysid ilaa aad gaadho maalinka tobnaad jamradana aad tuurato ma xalaaloobaysid maxaan ka wadnaa bimaana markaad xidhatay wixii xaraam ka noqday ku xalaaloobi maayaan labada go'baad ku taagnaan xataa 20 bari 30 bari 2 bilood inta xajka ka laaban maalinka tobnaad inta laga gaadhayo ma xalaaloobaysid maxaa yeelay xaj baad xidhatay xajkiina waa taagan yahay kama xalaaloobaysid ayadana way ku kala gadisan yihiin طيب waxa kale ku kala gadisan yihiin saan tilmaanayba xajka iyo umradaadii hal sacyi bay yeelanayaan oo ka safiya marwa dhexdooda waxa kale ku kala gadisan yihiin ruuxa xajka kaliya wata oo xaj kaliya u guntan yahay xoolo uu gowrac laga ma rabo soonna warkiisa iska badaa ayadana way ku kala gadisan yihiin kana waa ruuxii xaj kaliya xajinay waxa yimid oo isagana aan ku daraya ruuxii xaj iyo umra isugu jirtay asaga waxay isku mid yihiin kan hadda soo sharaxnay ee xaj kaliya wati kaliya waxay ku kala gadisan yihiin labadoodu markuu soo xidhanayo bedelka kii hore uu yiri labbayka xajjan kani wuxuu leeyahay labbayka xajjan wa umra Sooma labbayka xajjan wa umra kadibna meeshuu imaan dawaafku sameyn sacyiga haduu rabo ku dar haduu rabo dib dhigi acmaashi xajku gudagali xajka maalinka sideedaadna labadooda midna laga ma rabo inay xaj xidhaan maalinka sideedaad yaa xajka xidhanaya waa mutamattic bas laakiin labadoodu xajkoodu waa u xidhnaaba ayagu way u soconayaan way dhaqaaqayaan mina bay aadayaan laakiin xaj ay xidhaan loogama baahna xoolo ay qalaana qaarinka xajka iyo umradu isugu dhex jirto asaga xoolo uu qala laga raba oo waa mutamattic laakiin mufridka xajka kaliya wata asaga laga ma rabo ahkaamtaas marka ka dhaxaysa ay ku kala gadisan yihiin nooca ugu fadli badanna waa kii hore sharaxnay wax yar haduu waqtigu saamaxayo daqiiqad aan idin ku daro sidoo kale waxa ziyaarada Madiina la siyaaranayo ayada waa dhowr kelimo waa midda koobaad wadadu saacad ay fiirinayaan laakiin darsi culus bay dhiibeen adiga hadii lagu yiraahdo yaani wax 3 xalqo 4 xalqo u baana hal xalqa ku soo ururi saacadana lagu qabto soo kadeed ma wadadu marka ayaga sabir raalli ahada siyaarada waxaan dhihi lahaa horta Madiina in la siyaarto waa sunno masaajidka nabiga in la siyaartana waa sunno laakiin mid baan idinku baraarujinayaa siyaarada masaajidka nabiga iyo xajku iskuma qasbana laazim ma aha ruuxi xajiyay inuu Madiina tago laazim ma laakiin waa sunno
ama xaj u tag ama si kale u tagay masaajidka nabiga inaad soo booqato taasi waxay meesha ka saaraysaa ictiqaad ay dadka qaarkood ictiqaadsan yihiin oo dhahaya ruux ma ka yimid oo soo xajiyo iska soo noqday nabi maxamed waa gooyay ama waa caasiyay sax maaha siyaaradu waa sunno labadooduna mutalaazimiin maaha طيب markaad madiina tagayso madiina maxaad u tagaysaa qasadkaagu muxuu yahay niyadaadu maxay tahay ya ma qabriga nabiga u socota maya qabriga nabiga inta la niyeysto in loo safro waa khalad nabigaana sidaa yidhi qubuurta looma safro siyaaradeeda laakiin waa inay niyadaadi iyo qasadkaagu yahay waxaan ziyaaranayaa masaajidkii nabiga sooma masaajida loo safraa saddexda masjid baa ziyaaradooda loo safraa waa masjidkul xaraamka Makka ku yaala masaajidka nabiga Madiina ku yaala iyo masaajidka saddexaad ee masjidul aqsa oo baytul maqdis ku yaala ilaa gacanta yahuuda ka saaray saddexda masjid baa loo safraa marka waxaad u safraysaa niyad ah masaajidka nabiga siyaaro niyadaadu waa inay taa noqoto طيب meeshii baa tagtay masaajidkii haddaad tagto soo qabrigii nabiga kuma yaalo soo siyaaro markaa ujeedadaad u timid ma ahayn qabriga laakiin maxaad u timid masaajidkaad u timid laakiin meeshii haddaad timid soo siyaara qabriga nabiga sallallahu alayhi wasallam see loo siyaartaa meeshaad tagaysaa masaajidka dhexdiisa ku yaala dhinac buu kaga yaalaa meeshaad tagaysaa qabrigaad ku jeedsanaysaa xaggiisa qiblada wuu ka jeedaa waad ku jeedsanaysaa macnaa qibladaad gadaal marinaysaa waad ku jeedsanaysaa kadibna waad salaamaysaa assalaamu alayka ya rasuul allah assalaamu alayka ya aba bakrin السلام عليك يا عمر بس إلا النبي يصدح لبديسي صاحب ماشي كودا أصلا صوما وات سلام يسا بس ماشي هاس وات كجود بيس ماشي إلهي كبر يميس كنت كان ميس شقك لكومة هالو نبي وات سلامتي لبديسي صاحب وات سلامتي كسعو هذا ضربته إنها سيارة قبور تكلم مسلمين تبقيع يدنا السيارة والصلان مشكلة مالي لكن عبادة لازم معه هذا القبور كله سو سيارنيسو magaalada ku taala sida yaani maqbaratu shuhada oo kale oo muxuu ahaay uxud agteeda soo siyaaro soo salaan dhib male sooma marka qaabkaas siyaaradan loo gudanayaa masaajidka nabiga la siyaaran kadibna nabiga waa la soo salaami salaan ka badanna ma sugna oo waa bidco walilasaf dadka caamada ah waxyaalaha ay sameeyeen maalin waxaan arkay anoo meesha maraya ayaa waxaan arkay wiil yar oo dhalinyaro ah oo intuu qiblada ka jeesaday qabriga u jeesaday tukanaya oo qibla ahaan ka dhiganaya marka waa halis acmaashi marka ziyaaro iyo xaj iyo umro sidaas weeye xajkiina Allah aqbalo hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad